iyadoo Soomaaliya ay dhowr jeer ku guuldareysatay inay ka soo baxdo waqtigii loogu talagalay in lagu qabto doorashada ayaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha waxa ay sheegayaan inaysan ku faraxsaneen qaabka loo marayo doorashada maadaama ay ku eg tahay 25 bishan welina ay dhiman yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Daahir Maxamuud Geelle oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee dalka oo wareysi gaar ah siinaya wakaaladda wararka Turkiga ee Anadol ayaa tilmaamay in waxa ugu muhiimsan ee dal qaban karo ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku dhacda si cadaalad ah, hufan, dadkuna ay ku kalsoonaadaan. Geelle waxa uu xusay in 3 sano laga joogo marka ay bilaabeen ololahooda doorashada, balse taa beddelkeed ay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay ku mashquulsan yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen in doorasho dalka ay ka dhacdo. Waxa uu tilmaamay in rabshado 2 jeer ka dhacay Muqdisho ay doorashada sabab u noqotay inay dib u dhacdo iyadoo dawladdu aysan rabin in doorasho lagu qanacsan yahay dalka ay ka qabato. Doorashada xildhibaanada aqalka sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo dalka ay ka socoto dhameystirka doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Waxaase jira walaac ah inay dhaafto waqtigii lagu ballamay in la soo dhameeyo oo ay ka hartay hadda kaliya 11 maalin. Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in rajo wanaagsan hadda ay ka qabaan in lagu soo dhameyn karo waqtiga loo aseeyay suuragal ay tahay balse loo baahan yahay dadaal sax ah. Siyaasadiisa dhinaca diblomaasiyadda mar wax laga weydiiyay ayuu tilmaamay in dawladda Kenya ay diris la tahay Soomaaliya ayna wadaagaan xuduud isku socodka dadka iyo ganacsiga, waxaana uu tilmaamay in qaxooti aad u badan oo Soomaaliya ay ku nool yihiin dalka Kenya isla markaana dagaalada dhexdooda ah aysan cidna faa'iido ugu jirin. Waxa uu xusay in haddii loo doorto madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo abuuridda siyaasad ku salaysan tixgelinta juqraafiyadda ee gobolka iyo siyaasad amni oo wanaagsan oo sugaysa dadka degan labada wadan. Daahir Geelle ayaa u sheegay Anadol haddii uu ku guuleysto in qorshihiisa istiraatiijiyadeed ee siyaasadda arrimaha dibadda uu aad uga duwanaan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee la hirgeliyay 5 sano ee la soo dhaafay, taas oo cadowtooyo loogu abuuray dalal ay ka mid tahay dalka Djibouti oo aan walaalaha nahay. Waxa kale oo jirta in dawladaha Imaaraadka, Sacuudiga, Bahrain iyo Masar ay xiriirka diblomaasiyadeed ay u jareen dawladda Qatar bishii Juun 2017. Soomaaliya ayaana markaas qaadatay mowqif dhexdhexaad ah, balse mucaaradka ayaa ku andacoonaya in maamulka hadda jira uusan si buuxda dhexdhexaad uga ahayn arrintaas. Musharax Daahir Geelle ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay dhexdhexaad ka noqoto arrinta Khaliijka, taas oo keentay in Imaaraadka lagu tilmaamo cadowga Soomaaliya. Xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya, Geelle oo dad badan ay u arkaan inuu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad musharaxiinta mucaaradka ah ee ku loolamaya jagada ugu sareysa ee dalka, ayaa sheegay in Turkiga uu yahay dal ay Soomaaliya saaxiib wanaagsan ka dhaxayso isla markaana ay ka dhaxeeyaan dareen guud maadaama labada dal ay xubno ka yihiin hay'ado caalami ah ayna sidoo kale leeyihiin xiriir wanaagsan iyo iskaashi ka dhaxeeya. Waxa uu xusay in xiriirka labada dawladood uu soo maray heerar kala duwan oo uusan ahayn mid toos ah. Waxa uu sheegay in xiriirka uu yahay mid ku saleysan danaha Soomaaliya iyo Turkiga isla markaana uu doonayo in wada shaqayntu aysan noqon in la taageero oo kaliya ee la iska kaashado midba midka kale khibradiisa iyo kobaca dhaqaalaha. Xiriirka noocan ah waa in mar walba la qiimeeyaa oo dib loo qiimeeyaa nooca danaha iyo faa'iidada Turkiga uu ka helayo Soomaaliya iyo cagsigeeda oo aan isbarbar dhigno faa'iidada iyo khasaaraha, ayuu yiri musharax madaxweyne Daahir Geelle. Arrinta kale ee walaaca laga muujiyay ayaa ah in la siyaasadeeyo ciidamada ay tababartay dawladda Turkiga ee Soomaaliya ku sugan xilliyada ay socdaan khilaafaadka siyaasadeed ee la xiriira doorashada, gaar ahaan xubnaha mucaaradka ah. Mar wax laga weydiiyay sababta ay mucaaradku u siyaasadeeyaan ciidamada, ayuu Geelle ku eedeeyay in askarta uu Turkiga u soo tababaray Soomaaliya uu maamulka farmaajo u adeegsaday mucaaradka iyo taageerayaashooda. Waxa uu sheegay ugu dambeyntii in loo baahan yahay in dhaleeceynta loo jeediyo kuwa ku shaqeysta askarta si ay uga faa'iideystaan siyaasadooda iyo ujeedadooda ugu weyn oo ah in la wiiqo kuwa ka soo horjeeda ama mucaaradka.